لو سمع سبيل تمرتي نباتك بسكولة نعنعيدي حنشدي بسكولة كلا دوانا كقرابة أفكار نقاش واحد بسكك عندنا شذ الله سبحانه فقد النقاش شفتها وحكاده اللي عكته يتجور قدوة دمان سنفتها ورانو. أبا محمود أحمد محمد waxa uu hal abuuray fikir ganacsi oo ka duwan ka muwaadiniinta kale ee shaqo wadaaga yihiin haddaba daawada haddii aad taqaanay dukaan meel uun loogu soo kan noociisu ku cusub yahay gudaha caasimadda Hargeysa uu ku iibiyaa waxyaabaha yaryar ee lagama maarmaanka u ah nolosha bulshada qaybaheeda kala duwan aabahani waxa uu dukaankan ka masruufaa كقرابة أفكار نقاش واحد بسكك عندنا شذ الله سبحانه فقد النقاش شفتها وحكاده اللي عكته يتجور قدوة دمان سنفتها ورانو. دكانك waxaa la horay socod waxa weeye waxaan ka bilaabay shaqada meel aad u hooseysa lacag waxaan ku bilaabay $25 waxaan ku bilaabay shigniga cuntada lagu darsado la shiido waxaan ku xijiyay cabitaan waxaan ku xijiyay taxta xalowska sabiibta kaliya iyo nabaadka waxa ka bacdi waxaan u fikiray dukaankan inaan sameeyo gararatada ma sha Allah waxaan ka bilaabay caruus 8 baan leeyahay 4 wiil iyo 4 gabdhood wixii Soomaali sheegto dhalinyaradu inay shaqeystaan oo nin walba fikir shaqo la yimaado nin walba waxa weeye dhaqdhaqaaq sameeyo maskaxdiisa ka shaqeysiyo dalka wax shaqo la'aan oo taala ma jirto laakiin waxa taala maskaxda aan laga shaqeysiinay waxa yeelay qofka hadduu maskaxdiisa ka shaqeysiyo wax uu abuuri karaa marka dhalinyaradu inay wax abuurtaan shaxaadka la iska daayo dadka xafiisyada loogu tagiyo la shaxaada la iska dhaafo gidaarada la fadhiyo shaaha iyo qiilo waqaan lagu fadhiyo la iska daayo waxa qof kasta waa mas'uul weeye qofka muslimka wuxuu ku qangaara 15 jir hadda noqoto waa inaad isku dayda inaad wax la soo baxdid marka nin walba inuu wax la soo baxo ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay waxa weeye dadku hadduu nin walba wax la soo baxo dalku wuxuu noqonayaa marka uu iskaabaya dad ahaan iyo bulsho ahaan oo dhismaynaa dad wax ku oola oo ummadda wax la qaybsan karno way noqonaynaa shaqadan waxaan bilaabay adigu ilaa 5 bilood baan hadda wadaa muddo dhan shaqadan waxay igu dhaliyeen inaan qabto muxuu ahaa nin mas'uula baan ahay caruuri awlaad leh markaas oo carabtuna waxay tahay alxaajatu umul ikhtiraac marka dantu qofka qabsato iyada keenaysa marka ikhtirac iyo hal abuur la imaanaysa marka waxa weeye danta iyo dadka mas'uulka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu kullukum mas'uulun wa mas'uulun an ra'iyati qof kasta waa mas'uul wuxuu ka mas'uul yahay waa la weydiinaya sida darteed ayaan u shaqeysto shaqadan u abuuray ma sha Allah suuqeedu wuu fiican yahay wax fiican bay iga soo gala meherad walba ama haweenaata ama hayraata 3 shay bay ka kooban tahay inuu qofku naftiisa ka dabaro dadkiisa ka dabaro waxna ka dhigto meheradana inta uu ka kooban tahay waxna waan ka dhigtaa wax nafteedana ka dabaro ehelkayga nabiil baan uga diray ashiyaadan iibiyo way kala duwan yihiin cuntooyinka waxa kamid ah lowska oo macsabiiba lows macal halwa lows muxuha dhilan oo waxa weeyaan aan lahayn ma aragtay galkii sare iyo kii galka la afarta nooc way lowsku sabiibtii oo gaaran gada nabaadka yar baan gada keegan gada muqmad oo 5 kun gada timirto 3 kun gada waxyaabaha yar oo dhan oo jaban oo waxa weeye baan gada waxyaabaha kala cuntada waxa kamid ah saacadaha oo kiyaalayaasha earphone-nada baytariyada mobilada cadarada muxuha qoli suuniyaha gabdhaha cidiya jarta liifta weelasha biinanka dharka harkaha dharka waxyaabaha soo dhanacnayada iyo biskuulada iyo waxyaabaha oo adigu wixii yar oo dhan oo dadku u baahan yihiin ayaan gadaa waxyaabaha soo dhan bay ka kooban yihiin mustaqbalka waxaan rajaynayaa horta muhiimadda koobaad shaqada aan ka helay waxa weeye اليد العليا خير من يد السفلى قعنت سريسا يا كخير بدا قعنت hooseysa in aan bini aadan ana waxba weydiisana ka maarmad muhiimadu waa taa weeye inta wixii dheerna waxaan rajaynayaa in aan maarka mustaqbal fiican oo nolosheeda aan ka bedelo ilmahayga hanti uga dhiso bakhaarada waxaan ka furan karaa ka furto ayaa ilaahay ka rajaynaya laakiin muhiimadda koobaad waxa weeye in aan bini aadan su'aashiisa ka maarmo